ku soo dhawaada xulashada wararka iyo warbixinada caalamka sirdoonka iyo wararka diblomaasiyadda. qaybtan waxaanu ku soo qaadan doonaa isla marhaantaana aynu ku faaqidi doonaa xiisadda siyaasadeed ee ka dhex xaloolsan dawladaha Turkiga iyo Mareykanka oo ka soo horjeeda horumarada ee dhinaca hubka iyo waliba sidoo kale diyaaradaha droonka ee uu sameeyo Turkiga. haddaba maxay tahay sababta Mareykanka uu uga soo horjeedo horumarka Turkiga? halkan ayaynu idinkula wadaagi doonaa. mahadsanidin daawadayaal, mar kale ku soo dhawaada warbixinadan oo faahfaahsan. waxaa maalmihii ugu dambeeyay xiisad xooggan ay ka dhex taagneed Mareykanka iyo dawladda ay gaashaanbuurta yihiin, sidoo kalena ay iskala tirsan yihiin ururka NATO ee Turkiga. xiisadan ayaa waxay salka ku haysaa Mareykanka oo aad uga soo horjeeda isbahaysiyada Turkiga ee ay ku iibsanayaan gantaalada difaaca cirka ee uu Ruush ka farsameeyo, kuwaas oo lagu magacaabo S-400, weliba iyagoo heli kara nidaamka difaaca cirka ee Mareykanka misna lagu magacaabo Patriot. Turkiga ayaana qorshaha uu ku iibsanayo gantaalada difaaca hawada ee Ruushka soo bilaabay tan iyo 2016, waxaana tan iyo muddadaas isaga iyo Mareykanka ka dhex aloolsaneed xiisad ku aadan qorshaha Turkiga maagan yahay. Mareykanka ayaa marar badan fariimahan jabaada iyo mid digniin ahba u soo diray dhigooda Turkiga, iyagoona u sheegay haddii ay tallaabadaas qaadaan cawaaqib xumo inay kala kulmi doonaan, sidoo kalena ay cunaqabatayn saari doonaan. balse Turkiga ayaana arrinkaasi si cad isaga indha tiray kadib markii ay dhowaan iibsadeen dufcaddii u dambeysay ee gantaalada difaaca S-400. haddaba maxay tahay sababta Mareykanku uga soo horjeedo arrinkani? ugu horreyn, waxaa la og yahay cadaawadda gaamurtay ee ka dhaxaysa Mareykanka iyo Ruushka, iyagoona labadan dawladood uu mar waliba loolan ba'an ka dhaxeeyay tan iyo dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida. sidoo kalena Turkiga ayaa wuxuu qayb ka yahay xulafada gaashaanbuurta NATO, iyagoona matalaan ciidamada labaad ee ugu badan gaashaanbuurta, keliyana waxaa ka ciidamo badan Mareykanka. sidaasi awgeed, maadaama uu Turkiga qayb ka yahay gaashaanbuurta NATO, Mareykanka wuxuu sheegay inay halis tahay iibsashada gantaalada difaaca cirka ee Ruushka, sidoo kalena ay qalqal gelin karaan amniga gobolka. xitaa waxaa macquul ah in gantaaladan yihiin kuwa wax basaasa, sirtoodana ogaan karaan Ruushka. balse Turkiga ayaa ku dooday in nidaamkan uu yahay mid ka baxsan gaashaanbuurta NATO, isla markaana wax shaqo ku lahayn, Turkigana arrimihiisa gaarka u adeegsan doono. tiyo ay jirto in Turkiga uu yahay dal madax bannaan, wuxuu doono inuu sameeyo. sidaas awgeedna Mareykanka uusan soo faragashan arrimaha gudaha Turkiga, meeshana aysan NATO marna qayb ka ahayn. isjiijiid caynkaas oo muddo sanooyina socday kadib, ugu dambeyn Turkiga ayaa dhammaystiray iibsashada nidaamka difaaca cirka ee S-400, waxayna arrinkaasi dhalisay in Mareykanka uu ciqaab ku soo rogo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Turkiga, haba ugu horeeyaan ragga ugu sarreeya wasaaradda difaaca Turkiga. maalinnimadii Isniinta ahayd, Washington ayaa ciqaab dul dhigtay Ankara, iyagoona ciqaabtan ku beegsaday madaxda ugu sarreysa hay-adaha horumarinta iyo warshadaynta difaaca Turkiga. waxaana qayb ka ah madaxa hay-addan ninka lagu magacaabo Ismaaciil Damiir iyo 3 ka mid ah ragga hay-addan ka howlgala. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaana ciqaabtan u adeegsatay xeerka lagu magacaabo kasta. waa xeer ay Mareykanka kula dagaalamaan dadka ay u arkaan in muran uu kala dhaxeeyo, balse kadib ciqaabtii Turkiga lagu soo rogay waxaaba kor u kacday qiimaha lacagtii liirada Turkiga, iyadoona kor u kacday 100%. kadib ciqaabtan Mareykanka uu dul dhigay Turkiga, waxaa arrinkaasi si adag uga hadlay mas'uuliyiinta dawladda Turkiga, kuwaas oo sheegay in dhankooda ay arrinkan jawaab degdeg ah ka bixin doonaan. wasiirka difaaca Turkiga ninka lagu magacaabo Hulusi Akar ayaa sheegay in ciqaabta uu Mareykanka ku soo rogay dalkiisa ay gilgilayso iskaashiga ka dhaxeeya Ankara iyo Washington. isaga oo hadalkiisa sii wata ayuuna sheegay in la yaab tahay in Mareykanka ciqaab ku soo rogo dawlad xubin ka ah gaashaanbuurta NATO. wuxuuna yidhi arrinkaasi keliya gaashaanbuurta dhibaato kuma noqon doonto, sidoo kalena waxay burburin doontaa kalsoonidii la isku qabay. Hulusi Akar ayaana ugu dambeyn sheegay in Turkiga uu diyaar u yahay sidii ay mar waliba u ilaalin lahaayeen muwaadiniintooda, uguna ilaalin lahaayeen halista gantaalada ee ay wajahayaan, isagoona kala jeeday iibsashada nidaamka difaaca hawada ee Ruushka uu yahay mid ay amniga muwaadiniintooda ku ilaalinayaan. dhanka kale, baarlamaanka Turkiga ayaa markii ugu horeysay mowqif midaysan arrinkan ka qaatay kadib markii 4 ka mid ah 5 xisbi ee Turkiga ka dhisan
xubnahooda qaybta ka baarlamaanka soo saareen bayaan ay ku cambaareynayaan falka uu Mareykanka ku kacay. Baarlamaanka Turkiga ayaana bayaankan ku sheegay in xiriirka Mareykanka iyo Turkiga qasab tahay inuu ahaado mid ixtiraamka labada dawladood ku tiirsan, sidaas awgeedna ciqaabta Mareykanka ee ku aadan iibsashada gantaalada difaaca Ruushka ee S-400 ay tahay mid ixtiraam darro ah, misna aanan ruuxdii isbahaysiga ka turjumaynin. Sidoo kale waxay Mareykanka ugu baaqeen khaladaadkan foosha xun inay si degdeg ah uga laabtaan Turkiga aanan hanjabaad iyo ciqaab waxba looga qaadi karin. Bayaankan ayaa waxaa ku saxiixnaa dhammaan xubnaha xisbiyada Turkiga ka dhisan markii laga reebo xubnaha xisbiga dimuqraadiga shacabka kaasoo ah mid Kurdida Turkiga leeyihiin. Haddaba maxay tahay sababta Turkiga u iibsanayaan gantaalada difaaca S-400 iyagoo heli kara gantaalada difaaca Mareykanka ee Patriot? Turkiga ka hor inta uusan iibsanin nidaamka difaaca Ruushka wuxuu aad u doonayay midka uu farsameeyo Mareykanka ee Patriot, balse ihtimaamkooda ku aadan nidaamkaas ayaana isbedelay kadib markii ay soo baxeen dhowr arrimood oo isbiirsaday, taasoo muujinayso in nidaamka difaaca Ruushka ee S-400 wax badan ka fiican yahay midka Patriot. Turkiga iyo Mareykanka waa xulufo ka wada tirsan NATO, sidaas awgeed Turkiga ayaa doonayay inuu iibsado nidaamka Patriot, balse waxaa nidaamkaasi shaki weyn ka muujiyeen kadib markii ay dhacday midkii Sacuudiga ku xirnaa misna Mareykanka uu dalkaasi ka iibiyay si fudud ku soo dhaafeen gantaalada ay Xuutiyiinta la beegsadeen magaalooyinka Sacuudiga ayaa waxay dagaal kula jireen Xuutiyiinta Yemen, sidaas awgeedna waxay Mareykanka ka soo iibsadeen gantaalada difaaca hawada ee Patriot, balse waxaa la yaab noqotay kadib markii uu nidaamkaas ku fashilmay inuu Sacuudiga ka difaaco gantaalada Xuutiyiinta, kuwaasoo weliba aanan ahayn kuwa halis badan aadna aan u weynayn. Turkiga ayaana la aaminsan yahay in waqtigaas si rasmi ah u joojiyeen ihtimaamkii ay siinayeen gantaalada difaaca Patriot, waxayna diiradda saareen midka Ruushka oo loo arkayay inuu wax badan ka horumarsan yahay kan Mareykanka. Haddaba halkan kaga bogo xog ku saabsan labada nidaam difaacadeed iyo sida uu midka Ruushka uga fiican yahay kan Mareykanka. gantaalada difaaca S-400 waxay awood u leeyihiin inay soo ridaan diyaaradaha ugu casrisan iyo gantaaladii ugu dambeeyay misna casriga ah ha ahaadaan oo kuwa aadka u fog amaba kuwa dhowba. waxaana diyaaradaha ay soo ridi karaan misna burburin karaan ka mid ah diyaaradaha uu Mareykanka ku faano ee F-35 iyo F-22, halka gantaalada Patriot ilaaliyaan kaliya xarumaha militariga ee muhiimka iyo saldhigyada hawada isagoona ka ilaaliya weerarada hawada. nidaamka S-400 waxay ka kooban yihiin 3 qaybood. qaybta koobaad waa 8 cutub oo lidka diyaaradaha ah, taasoona leh 12 af oo ay gantaalaha ka baxaan. qaybta labaadna waxay ka kooban tahay nidaamka lagu xukumo lagana jiheeyo iyo raadaarka, halka qaybta saddexaadna ka kooban tahay farsamada gantaalada iyo dayactirkooda. dhanka kale nidaamka Patriot isagana waa 3 qaybood. qaybta koobaad waa cutubyada raadaarka iyo jiheeyaha, qaybta labaadna waa xarunta taliska, halka qaybta saddexaadna tahay cutubkii gantaalada laga ridayay. arrimaha kale waxaa ka mid ah nidaamka S-400 wuxuu wax ka burburin karaa bartilmaameed dhulka ka fog 250 kilomitir si la mid ah gantaalada balaastikada ee ka fog 60 kilomitir, balse taas beddelkeeda nidaamka Patriot ma burburin karo bartilmaameed dhulka ka fog 160 kilomitir iyo gantaalo u jira fogaansho 45 kilomitir. qodobka afaraad ay ku kala duwan yihiin nidaamka S-400 wuxuu soo ridi karaa bartilmaameed hawada ku jira masaafada ugu yar ay tahay 10 mitir, halka midka ugu dheerna tahay 27 kilomitir, balse nidaamka Patriot waxay kala yihiin 60 mitir iyo 24 kilomitir, taas oona ka dhigan inuusan soo ridi karin wax ka hooseeya 60 mitir ama ka sarreeya 24 kilomitir, halka midka Ruushkana uu intaas ka badan awoodo. qodobka shanaad raadeerka nidaamka S-400 wuxuu ka shaqayn karaa sidoo kalena ilaalin karaa masaafo 600 kilomitir, waxaana gantaalada ridistiisa lagu diyaarin karaa kaliya 5 daqiiqo, halka midka Mareykanka ee Patriot ilaalin karo kaliya 150 kilomitir. taas beddelkeedana ridista gantaalka lagu diyaariyo 30 daqiiqo. waxaana halkaas ka dareemi kartaa farqiga baaxadda leh ee u dhaxeeya labada nidaam. qodobka lixaad nidaamka S-400 wuxuu awood u leeyahay gantaalka ugu horeeya inuu rido 10 ilbiriqsi kadib markii uu bartilmaameedkiisa ogaado,
halka nidaamka Patriot uu u baahan yahay 15 ilbiriqsi. qodobka ugu dambeeya toddobaad, nidaamka S-400 wuxuu gantaalo ka ridi karaa xagal dhan 90 digrii keliya, halka midka Patriot uusan awood u lahayn inuu gantaal ka rido xagal ka yar 38 darajo. arrimahaas iyo kuwo kale oo isbiirsadayba waxay si caad oo aanan ishkaal lahayn u muujinayaan sida uu nidaamka S-400 wax badan uga fiican yahay midka Mareykanka sameeyay Patriot. sidoo kale Ruushka ayaa haatan ku guda jiro inuu soo saaro nidaam ka casrisan kana fiican midka S-400, waana nidaamkan vershinkiisii S-500 kaasoo lagu wado inuu noqdo midka ugu fiican dunida. sidaas awgeed Turkiga isagoo xubin ka ah gaashaanbuurta NATO oo ay ka wada tirsan yihiin Mareykanka ayuu doorbiday inuu iibsado midka Ruushka maadaama uu tayo ahaan ka sarreeyo. xisaabtana ku darso in Ruushka iyo Turkiga daris yihiin, sidoo kalena iskaashi iyo xiriir qoto dheer uu ka dhaxeeyo. haatan oo uu Turkigu iibsaday nidaamkan, sidoo kalena Mareykanka uu ciqaabta ku soo rogay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo hay'adaha dalkaas, haddana xulafada NATO ayaa taageersan go'aanka Turkiga ay ku iibsadeen gantaalada difaaca S-400, iyagoona aaminsan inay tahay arrin ay u madax bannaan yihiin Turkiga. xogayaha guud ee ururka NATO Jens oo ka hadlayay ciqaabta Turkiga ku soo rogay Mareykanka ayaana sheegay inuu aad uga xun yahay arrinkaasi, wuxuuna sheegay in loo baahan yahay arrimaha caynkan oo kale ah in laga wada hadlo. marka laga reebo Mareykanka, dhammaan saaxiibada Turkiga ku leeyihiin caalamka gaar ahaan Yurub ayaa waxay sheegeen in go'aankan uu yahay mid ku qotoma madax bannaanida Turkiga, loona baahan yahay in arrimaheeda aan la faragelin. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa wararka iyo warbixinada caalamka, sirdoonka iyo wararka diblomaasiyadda oo kala socoteen xulashada wararka. nabadgelyo.